dabcan sida lala socdo cid walba ay dareemayso dalka Soomaaliya wuxuu galay marxalad kala guur waxaa socda maraaxishii madaxweynaadkii dawladda federaalka uu gabagaba yahay oo aan rajaynayno in doorashooyin ay dhacaan runtiina la wada sugayo dabcan sidaad ogtihiin doorashooyinkaas waxaan rajaynaynaa in sida ugu habboon ay ku dhacaan xaaladaha ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya isbedelada ku dhacay shirkii Dhuusamareeb 2 ka dambeeyay dalku galay dabcan xukuumaddii hawsha waday fulintina looga fadhiyo ayadii meesha ka baxday runtii hadday taas baxday waxaan sugaynaa anagu in xukuumad kale iyo ra'iisul wasaare kale oo bedelo hawsha sii wada inay meesha soo baxdo waxaa muuqanaysa inaan weli dhinacaas la aadin dhinacyo kalena la aadin runtii arrintaas Puntland weli waa ay tashibay ka fiirsanaysaa oo ka tashanaysaa waxa kale oo muhiim ah wadbadii madaxweynaha shalay uu akhriyay oo ku bayaaniyay hadallo badan iyadana waxay u baahan tahay in si taxaddar loo eego dabcan annagu waxaan aaminsanayn in marxaladii hay'adaha sharciga ah ay gabaabsi yihiin wadadii saxda ahayd oo sharciga ahaydna la gaari waayay qof iyo cod Puntland ma diidana qof Soomaaliyeed ma diiday kara maxaa ila dastuurka ku qoranta laakiin waxa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la gaaro inay adag tahay taana waxaa cadeeyay gudoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin haddii wadada sharcigu ay xiranto waxaa dabiici ah oo ilaa ay soo jireen ah ilaa iyo 2000 in wada siyaasi la aado xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo Puntland 22 sano ay jirtay 98 jaartarkii ugu horeeyay waxa lagu dhigay in qof iyo cod uu noqdo baarlamaanka soo socda geli doona mar walba oo la gaaro madaxweynaadku inuu gabaabsi yahay la arko inaan diyaar garow lahayn waxa la aadaa xal siyaasi ah dalkana hore u socda dhibaatana ma dhacdo ilaa hadda laga soo gaalay oo salay halka lagu daafuray oo shahaadooyinkii la siiyay 10kii urur ay ka soo gudubtay oo aan rajaynayno in madaxweynaadka soo socda dalka uu galo doorasho qof iyo cod ah isagoo waqti ku filan haysta wixii loo baahnaa oo sharci ah ama procedure ahaan oo dhan qaybna hadda uu haysto qaybta kalena muddo lagu qaban karo ay harsantahay sideedaba xalka sharciga ah wuxuu markuu uu adkaado ayaa xal siyaasi yimaadaan shirka ka qabsoomaya Dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay waxa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo baarlamaanka laga sugaayo isaga oo go'aanka gaari doono Puntland markii xal siyaasi dhaba u jiro diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda ka qaato hadduu xal sharci jirana sharciga ayuu hoggaansan doontaa haddii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayana qoraahdeeda ku habboon ayay oranaysaa waqtiga ku habboon aad baa u mahadsantihiin intaasna waxaan rabaa inaan ka iraado marxaladda siyaasiga hadda la marayo maalmaha soo socdana insha Allah wixii soo kordho waa iska warqabi doona aad baa u mahadsantihiin